muddadii ugu badnayd abid ayaa dalka Soomaaliya uu yahay ra'iisul wasaare la'aan waxaana dad badan ay isweydiinayaan sababta muddadaas ay u qaadatay inkastoo uusan jirin sharci dhigaya in 30 cisho gudahood lagu soo magacaabo haddana waxay ahayd dhaqan muddo soo jiray oo sharci noqday in madaxweyne walba uu 30 cisho ku soo magacaabo Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintan ku eegaysay muddada ay qaadatay magacaabistii ra'iisul wasaaraha waxa dastuurka uu ka qabo iyo saameynta siyaasadda iyo tan awood qaybsi ee ay leedahay sababta ay dad badan oo daneeya arrimaha Soomaaliya ay uga walaacayaan waqtiga madaxweynaha ay ku qaadatay magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ugu weyn xilliga yar ee dawladani u hartay iyo go'aanada ku aadan hanaanka doorashada iyo xilliga kala guurka oo dhamaantoodba ka dhigaya in la helo ra'iisul wasaare hawsha dacalka sii qabta mid muhiim ah xilligan waxaase taas ku lamaanan su'aasha ah sababta ay muddada intaasi leeg ugu qaadatay madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare xildhibaan Saacadiya Yaasiin Xaaji oo kamid ah golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabaysa sababta ay iyadu u aragto sababta madaxweynuhu 30 bari way dhaaftay oo maaragtay u soo magacaabi waayay ra'iisul wasaare anigu waxaan qabaa sababta ugu weyn inay tahay ra'iisul wasaarihii wadanka ayaa waxa lagu riday si khaldan sharciga aan waafaqsanayn laba cali isweydiisay ma jirto sida halaaligeed haduu 2 bilood wadanku ra'iisul wasaare ahaan ilaa 3 bilood u ahaadana wuxuu og yahay in cid ka soo daba tagaysa aysan jirin khaladaadyadii hore oo maarta gudoomiyihii hore baarlamaanka lagu riday shakhsi bilaadan wadani ah dhibaatooyinkii badnaa oo wadanka laga soo galay ayay horta ka mid tahay marka wax hadda la yaabo oo mucjiso ah ani kollow ilama aha sababta wax badan oo khaladaad ah u soo joogay oo madaxweyne Farmaajo uu ku kacayo marka sidaas la aligeed ayaan anigu qabaa inta badan ra'iisul wasaarayaasha labaad marka la rido kan koobaad waxa Soomaalidu ay hore u soo aragtay in xal siyaasadeed aysan keenin balse khilaafka meesha uu ka sii socdo kaan ay tahay sababta uu madaxweynuhu aadka uga fiirsanayo xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed ayaa saqaba in howlaha siyaasadeed ee madaxweynaha uu gacanta xilligan ku hayo ay sababtay in waqtigan ay soo gaarto magacaabis la'aanta ra'iisul wasaaraha laba sababoodan aniga ayaan aan isleeyahay waa asal ay ka tahay mid koobaad waxa weeyaan horta shirarkii lagu jiray iyo mashquulka oo xagga shirka Dusmareetri u diyaar garowgiisii iyo asagii waqtigiisa oo xil qaatay midkan kaleeto oo hadana hadda u baahnaa xiriiro badan iyo howlo badan u baahnaa oo hadda la isugu yimid xamar oo madaxweynayaashii dawlad goboleedyada qaar kamid ay joogaan taas waxay keentaan isleeyahay dib u dhaca maskaxdii iyo waqtigii lagu fakari lahaa inay saameyn ku yeelatay midda kaleetana waxa weeyaan sharciga ayaa waxa ka jirta fusxa oo sharcigi ma xadidayo bil iyo 2 bil iyo 3 bil midna ma sheegay madaxweynaha inuu ku soo magacaabo ra'iisul wasaaraha marka maadaama uusan sharci xadidayaana jirin xoogaana waqti kulul oo shaqadu aad u badnayd oo shirar badan ay jireen oo qadaaya xasaas ay miiska saarnaayeen lagu jiray ayaa waxaan isleeyahay labadaas sababada waxay asal ka tahay dib u dhaca madaxweynaha uu dib u dhacay waxaana filayaa in kasto oo actin uu joogo ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu joogo haddana madaxweynuhu inuu ku baraarugsan yahay in dalkii uu ra'iisul wasaare la'aan yahay ayna u baahan tahay in la soo magacaabo mana filaayo hadda inay waqti badan oo dheer sii qaadan doonto haddii shirarkan hadda socda ay soo gabagaboobaan waxaa shaka ku jirin inaanay sahlanayn in madaxweyne Farmaajo uu xilligan soo helo ra'iisul wasaare waqtiga kala guurka dalka ka saari kara sidoo kalena isaga ku fikir ah oo aysan iska hor imaanaynin Cabdirashiid Khaliif Xaashim madaxa macadka Heritage ayaa weydiiyay sababta uu isleeyahay waa ay keentay in muddada soo xulista ra'iisul wasaaruhu ay dheeraato horta dastuurku awoodda magacaabista ra'iisul wasaaraha saan ognahay wuxuu siinayaa madaxweynaha cid lalana ma jirto oo taas waa mid labaadna curfiga ama dhaqanka siyaasadeedka Soomaaliyeed wuxuu ahaa in bil lagu magacaabo hadii madaxweynayaasha marka qaar hadii waqti ay u baahdaan way dalban jireen in loogu dardaro xoogaa marka waxa uu dhici karta madaxweynuhu laba midba waa dhici karta maxali ama 3 arrimoodba waxa dhici karta in uu Soomaali ka dhex raadinayo xilkaas weyn qof uu maaragtay ku habboon oo ka bixi kara oo miisaan iyo culays iyo cilmi iyo aqli kusoo kordhin kara xukuumadda iyo dawladda ama hoggaankaas weyn oo qaban kara in qofkaas raadinayo waa dhici karta waxa kaloo dhici karta inuu raadinayo qof
aan culays asaga ku keeni karin siyaasadeed shaqadaana ilaa xad qaban kara asaga un maaragtay maadaama xilli kala guur iyo doorashooyin lagu jiro Soomaaliya qofkii oran jirtay ushaada waxaa loo dhiibtaa nimaad ka qaadan kartid caawal inuu raadinayana waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta in xaalku ay ku baahday oo waqti aan loo baahnayn ra'iisul wasaare in la bixiyo ra'iisul wasaarihii la bixiyey waqtigii uu sii dhammaan rabo beelihii Soomaaliyeed oo kursigan geeyey oo maaragtay ku habboonaa kulligood ay kursigooda raadinayaan suu yeelo markuu garan waayo inuu suu yeelo garan waayana waa dhici kartaa hawsha ay ku baahatay intaba waa dhici kartaa marka laga soo tago muddadu inay dheeraatay waxaa kaloo jira in xildhibaanada qaar ay qabaan inka maqnaanshiyaha miiska kulamada muhiimka ah ee hadda socda iyo xaaladan kala guurka ah ra'iisul wasaaraha in ay sidoo kale gaf ku tahay awood qaybsiga siyaasadda sida uu sharxayo senator maxamed amiin sheekh cismaan waxaa xusid mudan in muddada 30 cisho ah curfi ama dhaqan dastuuri ah aysan si cad ugu caddayn dastuurka uusan u sheegin qodob ahaan in 30 maalmood gudahood lagu soo magacaabo ra'iisul wasaare laakiin ay tahay curfi ama dhaqan dastuuri ah sidaas daraadeed ay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo waxaa xusid mudan in nidaamka 4.5 ee asaaska u ah awood qaybsiga dalka uu yahay dhaqan siyaasadeed la isla aqbalsan yahay kuna yimid habdib heshiisineed in si cadna uusan dastuurku u sheegaynin in awoodda dalka lagu qaybsado 4.5 sidaas daraadeed waxaa jira mar walba dhaqan soo jireen ah oo loo ilaaliyo sida qodobada dastuurka ee dalka Palestine inuusan ra'iisul wasaare qayb ka ahayn wada hadallada hadda maalmahan ka dhici doona magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah waxay ku tusinaysaa in muhiimadda ra'iisul wasaaraha aysan u muuqan xafiiska madaxweyne Farmaajo isla markaana awoodiisii uu madaxweynuhu isagu ku tasarufayo oo booskii xukuumadda isagu u taagan yahay maadaama xukuumaddu ay tahay tan iyo dheele fulinta nidaamka doorasho ee dalka waxaa aragti taa lamid qabta xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji horta waxaynu ognahay wadankan waa wadan federalism ah xubnaha ugu sareeya madaxweyne ra'iisul wasaare iyo kullina si 4.5 loo kala qaybsadaa sababta madaxweynuhu uu labada boosba nacam sidoo rabo uu ka yeelayaa ani waxaan aaminsanahay inay khaldan tahay ra'iisul wasaare beel buu matalaa waana sababtii keentay labadii madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ay u imaan waayeen Dhuusamareeb asagoo power sharing wadanka nacam aysan dhamaystirnayn oo ra'iisul wasaarihii wadanka uu ka maqan yahay sida la adligeed haduu madaxweynuhu aaminsan yahay positionkii ra'iisul wasaarahana adiga buuxi madaxweyne ahaan afkiisa isagu nacam uu matalo waxa loo jeedaa wala khaladaadyadii hore ayay kamid tahay waana wax sharci darro ah ra'iisul wasaare wadanka isagoo aan lahayn inuu madaxweynuhu isagoo madaxweyne ah anoo ra'iisul wasaare anoo wax walba ah waana wax khalad ah laakiin waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay indho dheer u yeelato marka laga soo tago howlaha madlan siyaasadda raaran iyo doondoonista madaxweynaha waxaa sidoo kale jirta in waqtiga dawladda ay ka dhiman tahay 4 bil waxaana waqti walba oo madaxweynuhu la sii daaho ay keenaysaa quus siyaasadeed sida uu sharxay Cabdirashiid Khaliif runtii hadda waqti aan ra'iisul wasaare in la bixiyo aan ku habooneen oo aad kala guur loogu jiro bilaba ka hareen xukuumaddii iyo baarlamaankii ra'iisul wasaarihii la bixiyey markasta oo madaxweynuhu uu hadda la daahayna waxaa sii culeysyada kusii badanayaan ansixintiisa iyo ra'iisul wasaarahaas soo magacaabi doona iyo dawlad inuu dhiso oo baarlamaanka waxaasoo dhan waqtiga qaadanaysaa waxaas processkaas la isku wada furfurayna waxay culeys iyo carqalad iyo ku yihiin caqabad shaqadii dalka loo qaban lahaa ama ha noqoto amniga wax laga qabto ama siyaasadda in la dejiyo oo siyaasadda la xasiliyo ama ha noqoto deen cafiskii ha noqoto waxyaabo badan baa hadda hold on isaga jira ama maaragtay laalan waxay la laalan yihiin waxa weeye xukuumad caretaker oo dastuurka uu qabo inay maaragtay aysan tallaabo weyn sii qaadin inkastoo hadda waxay qaban karaan iska qabtaan baa meesha jirta
marka waqtiga hadda iyo bisha iyo barka hadda loo fadhiyay madaxweynahana shaqadii qaranka ka go'an tahay hadduu caawa magacaabana ansixinta asaga la ansixiyey iyo baarlamaanka inay xukuumaddiisa ansixiyaan iyo xukuumadda inay magaalada la qabsato iyadoon dalkii iyo shaqadiiba la qabsan baa dhici karta mandateku inuu ka dhammaado marka runtii xaajo gar adagu galay marka laakiin xaajo laga intaa ka badan waqti la gadan kara maaha waa xaajo loo baahan yahay in tallaabo uu ka qaado madaxweynaha ayaa hadda u muuqday inuu xooga saarayo inuu heshiis nooca doorasho ee dalku uu galayo uu la gaaro madaxda maamulada ay isdiidan yihiin gaar ahaana Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu hadda ay Muqdisho ku sugan yihiin isla markaana ay beesha caalamku isku riixayso in ay xal wadajir ka gaaraan nooca doorasho ee uu dalku aadayo inta uu ku jiro gorgortankan siyaasadeed waxay dadka qaarkii qabaan inuu madaxweynuhu kursiga ra'iisul wasaaraha uu sii banaanaanayo si rajo uu ugu noqdo siyaasiyiinta qaar culays ay uga iman lahaayeen ama xafiiltan siyaasadeed sidoo kale waxa ay taasi fursad u siinaysaa madaxweynuhu inuu go'aanka uu doonayo hadda ku gorgortamo isagoo dawladana kaligiis ka wakiil ah ra'iisul wasaaraha uu magacaabi doonana wuxuu noqon doonaa mid fuliya wixii hortii lagu heshiiyay taasoo sida ay siyaasiyiin badan qabaan yareynaysa isqabqabsi iyo kala aragti duwanaanshiyo dambe oo dhex marta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xilligan gabagabada ah mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan ayntaasi ahayd oo warbixintaasi soo jeedinaysay haddaba jagada ra'iisul wasaaraha oo bannaan muddo 40 maalmood iyo sharciyada jira ayuu Haroon Macruuf ka wareystay gudoomiyihii hore ee maxkamadda Soomaaliya Gariiqaan Ibraahim Idris Suleymaan horta madaxweynaha waxa sheeg dastuurka awood u siiyay qodobka 9aad faqradda inuu magacaabo ra'iisul wasaaraha laakiin muddo kuma xadidin oo ma oran muddada inta la go'ay inuu ku xadidaa xeerarka kalena kuma xadidin sidaas oo kale ma jiro qodob sharci oo oranaya madaxweynuhu sharci buu jibiyay maadaama muddada inta leeg uu haystay oo soo magacaabo way ra'iisul wasaaraha laakiin waxa loo raaci karaa oo sharci noqon kara habkii iyo hanaankii ay madaxweynayaashii hore ay u soo magacaabi jireen ra'iisul wasaaraha iyo muddada ay u soo magacaabi jireen muddada dheer ee ay soo socotay dowladnimada Soomaaliya ayaa wuxuu isu bedeli karaa maxay sharci isu bedeli kara oo ah caadada mar bay noqotaa sharci marka haddii sharci kala waayo caadada wax loo maamuli jiray ama wax loo hagi jiray ayaa sharci noqotaa oo lagu tilmaamaa curf way marka caadada waan gartay laakiin haddii madaxweynuhu uu ku soo magacaabi waayo 30 maalmood ma waxay ka dhigan tahay qodob sharci inuu jabiyo sharci qoran oo dalka u yaala oo uu jabiyay ma jirto laakiin shuruucdu waxay noqon kartaa mid qoran iyo mid aan qornayn marka shuruucda qoran hadii la yiraahdo ma jiro sharci qoran oo loo jeedo lagu soo eedeyn karo ama lagu loo karo wuu jibiyay laakiin curfigii dastuuriga ama dhaqankii dastuuriga loo mari jiray ayuun baan marin oo aanu habkiisii hanaankiisii ka weecdo marka haddii uusan jirin qodob waqti go'aan siinaya madaxweynaha inuu ku soo magacaabo ra'iisul wasaaraha taasi ma waxay ka dhigan tahay intay doonto xilkan uu banaanaan karo maya عند مدحوينها واجب وياه إنه مقعده وحنا كمرها absolute authority أود ورقي اللي وسكا يسموها وسو دانو حد كانوا دانو كيمياء تاسو waxaa meesha ka saaraya qodobkan leehdo kala qaybsanaanta awoodaha faqradiisa afraad ee dastuurka ayaa waxa ka dhalaya kala qaybsanaanta awoodaha waxa loo yaqaan limited government xukuumad xadiisan oo sharciga ku xadiisan marka waxa loo eedeeyay macquuliyadda iyo inta ay macquul tahay iyo sidii hore looga dhaqmi jiray iyo sidii ay tahay waa marka maalin hadii ay saas ka socoto wax lagu xisaabtami kara waa firaqa dastuuriga marnaba lama ogola marka saas darteed ayaa ma aha wax iska furan ma weligeed laakiin macquuliyadda iyo madaxweynaha fursad loo siiyo ayuu baarinta loo sameeyay marka maxaa xiriir oo ka dhaxeeya ra'iisul wasaaraha hadii la soo magacaabi waayo iyo doorkii dastuur ee hay'adda fulinta waxa ka dhaxeeya ra'iisul wasaaruhu waxa weeye waa madaxa u sareeya waaxda fulinta oo dawladda saddex waaxood bay u qaadataa waaxda fulinta iyo garsoorka iyo bahalka iyo sharci dejinta markaad eegto qodobka 19 faqradiisa labaad ee dastuurka kumeelka wuxuu leeyahay golaha wasiiradu waa hay'adda fulinta maamulka ugu sareysa golaha wasiiradana ra'iisul wasaarihiiba ayaa waxjoogahoodii oo wasiirkoodii koowaad marka macnaheedu waa maxay xukuumad kama dhisna dalku ma laha xukuumad oo ma shaqaynayaan qodobadaas 19
sidaasoo kale ma shaqeynaya qodobada 9 ee ka warramaya xilka iyo awoodaha wasiirka ma shaqeynayaan qodobka boqolaad oo kale oo ka warramaya awoodaha ra'iisul wasaaraha yani waaxdii fulinta hay-addii u sarreysay ee ah ra'iisul wasaarihii iyo golihii wasiirada ee hagayay siyaasadda guud ee dalka ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid amni ha noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto ama mid kaleba ha noqotee ayaa meesha ka maqan oo waxaan jirin xukuumad haysata kalsoonidii baarlamaanka oo fulin karta siyaasadaha iminka xukuumadda joogta waa maxay sida ku xusan qodobka 103 waa xilgaarsiin oo waxay ku gaarsiinaysaa xukuumadda rasmiga ahayd ee la sugayay marka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha magacaabo in ra'iisul wasaaruhu isagu dhiso 3 maalmood gudaha ku dhiso taa ra'iisul wasaaruhu waa inay qoran tahay ee 3 maalmood waa gartay markaan kusoo laabano qodobkii magacaabista ra'iisul wasaaraha maxaan ku idhaahdaa maxaad u jeedaa inay xaaladdu noqon karto maalmaha iyo toddobaadyada soo socda arrin dastuuri qalalaaso siyaasadeed oo wadanka ah ama mid hawl fulin oo ah hay-adda fulinta miyaad u jeedaa oo dhibaato ka imanaysa horta fulinta iyo xukuumaddu waa kala gaar باورك فلنت أولها فلنت وحوي ويسير شقين يعني دي واحد شقية شغاليه كل الدولة أو دي كمياش أوسط الريان باشقية لكن عمل الدولة يشحرك الدولة هذا أوسط الدولة واحد قانية ولا مسيرة أي فنية أو سياسة يقول إيه تلك الشغل ثمانية أما هنقطة 100 دبلت أما هنقطة 100 جودها نقطة مرة هيأدي بسيسي أما بديشين يسي تلكين يسي سياسة يقول إيه تلك أي ماشي كم مقام مرة لما أذكر يعني إنك تصالحان حكومة وحال صاصعة أفوات يلقوا صاحية الدورشين بأفوات يلقوا صاحية حكومة دي المال مرين لحيد السياسة دي لحي لحيد doorashadana ay ku dhacdo habkii loogu talagalay ama lagu heshiiyay ayaa meesha ka maqan kolka waxa weeyaan waa firaaq dastuuriya waa maqnaashiyo dastuuriya waxay abdi dhameyd ee oo qaabisay siyaasadda dalka ayaa meesha ka maqan madaxweynuhu uu ka sarreeyaa waaxda fulinta iyo waaxda garsoorka iyo waaxda shaqada uu ka sarreeyaa mas'uuliyadiisuna waa isku xidhkeeda iyo hagid hawlaha guud ee dalka laakiin siyaasadda dalka waxa ka mas'uula xukuumadda oo ra'iisul wasaaruhu hogaaminaya marka waa maqnaashiyo hay-adaas keligeed ay maqan tahay oo siyaasadda dalka iyo qorshayaashiisii horumarineed ama mid kaleba ay aanay jirin cid gacanta ku haysa iyo siyasad ku taala dalka uga taala haba yaraatee kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Ibraahim Iidle Suleymaan oo u waramayay Haroon Macruuf